إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ليال عاوة وحين هلك السجون نمي إن أينو والتعسي أينو الذي يقرابذي وكبحي مرحوم سنة محمد يوسف حاجي أو سنينتي كوغيريودي اسبتالك أغاخان إكويا لنيروبي إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو مركا لبادنا وحينو سميننا إن شاء الله تعالى تعسي تيرانيا له أيين أدرينا إهلكي يا قرابذي يددكي وكبحي مرحومك رنهانتي وحوها ولال آباء هجامية dad badan oo ku nool geeska Afrika hogaankiisii ay ku diirsadeen wax badanna u taray impact badanna ku lahaa. We would like to send condolences on behalf of the Somali community of the United States of America to the families and friends of late Senator Mohammed Yusuf Haji. Indeed, he was a leader, he was a father, and he left a profound impact on the lives of many people who live in the Horn of Africa. He was a negotiator and a peace builder. Inshallah ta'ala, Ilahi subhanahu wa ta'ala hauna haristo. Even tiga waynu soo koobi doonaa distance-kina hala ilaaliyo coronavirus badan baa jira. Waxaanan ugu talagalnay oonu iclaaminin inaysan dad badan isu iman annagoo ilaalinayna cudurka safmarka ah ee sida ba'an u faafaya oo run ahaantii dad badanna noloshooday galaaftay sanadkii tagay 2020 iyo sanadkan hadda bilaabay 2021 ka dawladana aad ay uga digayso. Marka waxaynu ugu talagalnay in dadka online ay kala socdaan si live ah. Inshallah ta'ala khadadka ma furna cidaan ugu talagalna kaliya baan u furi doonaa haddii kale inaynan furin bayaan u badan tahay. Marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa inshallah ta'ala aayadaha Quraanka Kariimka ah iyo duco uu noo samaynayo aabahan iyo walaalkeen sayidka سيد كسودو إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. walaalkay maxamed yuusuf xaaji cabdi oo ku geeriyooday Nairobi laguna hadda aan joogno Mareykanka waxa weeye habeenada dhan kale waan iska ooyay iga raali hada waxa weeye dadkii Soomaalida iyo dadkii la dhashay dhammaan annaka qaraabadii ani walaalkay uu ahaa aad u jeclaa anna aad baan u jeclaa ilaahay waxaan ka baryay on alla ka baryahayaa maxamed yuusuf xaaji cabdi inuu ilaahay u naxariisto reerkii badnaa aan ka dhalanay qoys ahaan waxaan leeyahay dhammaan caruurtii wiilashii iyo gabdhihii iyo dhammaan reer ballaaran baan ahayn oo fara badan oo reer xaaji cabdi meel walba uu joogo waxaan leeyahay muxuu ahaa samir khayr qaba Allah ina siiyo samir khayr qaba Allah ina siiyo ummadda Soomaalidana samir khayr qaba Allah ka siiyo waxaan leeyahay dhammaantiin dadka Soomaalida meel uu joogaba Soomaalida maxamed wuxuu ahaa nin nabadeed oo ummadda Soomaalida meel uu joogaba nabad ku maamulo ahaa waxaan leeyahay walaalkay ilaahay waxaan u bariyay ilaahay inuu jannadii geeyo ilaahay inuu dunuubtiisa dhaafo dadkan u soo abaabulayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhalinyarada waxaan leeyahay mahad weyn baan idin celinayaa waan idinku salaamahayaa dhammaantiin waxaan leeyahay walaalka ilaahay ha u dambi dhaafo Allah ha u dambi dhaafo wixii ka dambeeyeen Allah u dhaafo sheekh nuur baaruud oo isagana la soo sheego isna nin weynana waxaan leeyahay taasi waan u diray isagana ilaahay jannadii ha geeyo albaabka jannada Allah fur labadoodaba dadkiina ka soo qayb galay ee waxaan sameeyeen waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waad wanaagsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun madinta wa ilaahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed
ku nool Mareykanka iyo aniga codkooda ku hadlaya kuwa reer Minnesota ba waxaan uga tacsiyeynaynaa laba geeri oo aad naxdin u leh oo ku timid hogaamiyayaal bulsho Senator Maxamed Yuusuf Xaaji Allah u naxariisto iyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ku kala geeriyooday magaalada Nairobi iyo Muqdisho waxa ummadda Soomaaliyeed ka baxay dad ay adag tahay in booskooda la buuxiyo iyo kaalintooda maxaa yeelay labaduba waxay ahaayeen tiirar ka mid ah tiirarka ay ku taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waxay ka qayb qaateen barnaamijyo aad u fara badan oo xagga waliba wada noolaanshaha bulshada arrimaha nabadgelyada arrimaha hoggaanka iyo sidii ummaddu wada noolaan lahayd marka waa tacsi hadal badan ma laha kuma sii dheeraanay haddii Ilaahay yiraahdo aniga oo dhammaan inta halkan fadhida iyo inta ka maqanba magacooda iyo maqaamkooda ku matalaya waxaan halkan tacsi uga dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska ay ka baxeen Senator Allah u naxariistay Maxamed Yuusuf Xaaji iyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan Allah yarxamuhum Allah u naxariisto annagana gadaashooda Allah inama fidmeeyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen waxaan rajaynaynaa in samir iyo iimaan Allah ka siiyo salaamu calaykum يقول الله جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولا تحتسب وحين أدعين هنا كلا دعاءنا وحق بين مسلمين تسوي ليهين إن يسدعيان لبا ولاد أما لبا شخصي أو جيس أفريقيا ميزان كلها ولكن سنتر محمد يوسف حاجي oo wax fara badan ka soo qabtay geyiga Soomaalida taariikh weyn reebay iyo sheekheena weyn daacigi weyna Sheekh Nuur Baaruud oo arrimaha dacwada geeska Afrika wax fara badan u soo halgamay u soo orday u soo jeeday una soo rafaaday in fara badan in la kharijiyo la isku dayay Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay labadaba Allah subhanahu wa ta'ala Allahu naxariisto إله برينا يا رب سبحانه وتعالى الله نحرسه إلهي رب سبحانه وتعالى الله نحرسه نبض الصومالية جيجا صومالية كنا المركز تجوجان بسبر بوحة الله كسيه قارهان قويسكي عرورتي كتجانيه الكودينا سبر بوحة الله كسيه إخواني في الله سامق لسين وحياة الماميسان إلهي وحبون وامتحاميا وحكسوا بالله قف كفينوس نال كدمي كسر بالله إلى جير سيدنا كلا لجا جاريو كوا مركب مصيبة داسي كرد عضو لهايا إنا لله وإنا إليه راجعون إسلام كانوا مرسلوا جينيا هذا الوين باللي مادين وحكوا الله بشارين هيا وحوين بالله بشارين ذاك إسقى نبينا صلى الله عليه وسلم وإسقى لها مركي قبله سمت كمذا وعرورتي هذه السكراتها أي كتري أسامة بن زيد أبه يوتق وحاترها هبلاية ويل كذب السكرات أبو نؤمو وحكيري وحكترها قبل إذا قال إن لله ما أخذ إله ما إسكاله وحكست وقال يستقوم بإسكاله له ما هيستو وله ما أعطى وحكستنا يستقوم بحية يستقوم بكينا يستقوم بنقال أبو فلتصبر صبر قبل يوها صبرتو ولا تحتسب إلى هين أجري بالجهة كرهشتو ساسان لين هاي
labada walaalo geeska Afrika raad ku reebay midna xagga diinta midna xagga bulshada iyo nidaamka dawladnimada Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed sabir buuxa Allah ka siiyo qoyskiya qaraabadiina Rabbi subhanahu wa ta'ala sabir gaar ah ka siiyo wajazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعاء علماء dadkii igu horeeyay Ilaahay ha aqbalo. Senator Maxamed Yuusuf Xaaji, Sheekh Nuur Baaruud, waxaan kaloo halkan jeclaan lahaa inaan kaga faa'iideysto walaalkay Shafiic halkan jooga oo walaalkii Maxamed Khaliif oo xalay geeriyooday. isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto jannada firdawsana maaragtay Ilaahay ugu bishaareeyo. intaa kadib waxaan jeclaan lahaa in yar geerida maaragtay Senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo si gaar ah inoo wada taabatay dhamaanteen inaan in yar kormaro xilli kooban oo la soo shaqeeyay. inta aanan taa kormarin waxaan jeclaan lahaa runtii ma doonayo inaan taariikhdiisii aan halkan maaragtay ka sheekeeyo sababtoo ah haddii aad BBC-da iyo VOA-da iyo Universal TV iyo Somali National TV iyo TV-yadana kala duwan oo badan aad degeysanayseen taariikhii waad ka helisaan. haddii aad Google gashana taariikhdiisii xilligu dhashay jawooyinku soo qabtay arrimahaas oo dhan baad ka helisaa. waxaan jeclaan lahaa in aan kor istaago saddex qodob oo soo koobaya san aaminsanahay taariikhda Senator Maxamed Yuusuf Xaaji. saddexdaas qodob oo ah qodobka koowaad Senator Yuusuf Xaaji wuxuu ahaa qof u istaagay adeega bulshada u istaagay buu ahaa. waxaa tusaale kugu fudud shaqadiisii ugu horeysay ee uu qabto waxay ahayd 1960kii ilaa hadda oo 2 maalmood ka hor uu geeriyooday shaqadiiba ku jiray. wax ku khasbayay inuu ayniga xilligaas isagoo bilaabay ilaa hadda uu ku jiro ma jirin oo aan ka ahayn isagoo kaashanaya dhaqanka iyo diinta islaamka fahmayna nolosha macaankeedu inay tahay uu adeega bulshada inay tahay macaanka nolosha macaankeedu ma aha qofku inuu iska shaqeysto inuu dhaqaale sameeyo inuu wax iska barto naftiisa uu kaliya ku ekaado inaysan ahayn. dadka fahma nolosha macaankeedu inay tahay qofka u adeega bulshada. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kiina idinku wanaagsan waa ka dadka u adeega weeye. marka senatorku wuxuu lahaa maaragtay title kala duwan buu soo maray. marka wasiirka gaashaandhigu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ahaa commissioner buu soo noqday. titladaas oo dhan waxa uga muhiimsan oo runtii nakuna 10 inoo noqon kara public service baa uu ahaa lafdhabar. adeega bulshada ayuu mar walba u arkayay inay tahay nolosha adduunka iyo waxa aakhiro Ilaahay u dhaweynayo subhanahu wa ta'ala. marka waa 10 inaka lafteeno hadda uu inooga tagay iyo mas'uuliyad inooga tagay weeysan inaku u sii wada lahayn shaqadii uu ka tagay Senator Maxamed Yuusuf Xaaji. waa qodobka koowaad. qodobka labaad Senator Yuusuf oo marka soo Yuusuf loo yaqaano dadka badankood laakiin Maxamed Yuusuf Xaaji wuxuu ku caan baxay dadka aan filaya maanta halkan iskugu yimid iyo dadka badan ay nagala socdo shaashada internetka ba mahadnaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofka aan u shukrinin qofka bini aadamka ah anigu mahad celin ugama baahni. wuxuu lafdhabar u ahaa dadka Soomaaliyeed markii qarankii uu burburay dagaalkii sokeeye uu dhacay meelihii dadka Soomaaliyeed saldhiga u noqday soo mareen waxa ahaa wadanka Kenya. markastoo aragto qof wadan kale oo cusub yimidna caqabado badan buu la kulmaa. markaynu nimid wadankan qaxooti baynu ahayn caqabado badan baynu la kulanay qaar badan baynu hadda la kulminaa sababtoo ah systemya loo dhisay dad kale ayaan rabnaa inaynu inakii lafteena ku dhexnoolaano. in maanta aynu halkaas soo wada marno ganacsiga Soomaaliyeed lafdhabar ay u noqoto Nairobi iyo Kenya dadka lafdhabarka u ahaa ayuu kow ka ahaa Maxamed Yuusuf Xaaji. mahad celin iyo duco waxaynu ugu mahad celinaynaa hadda waa duco ayuu maaragtay inaga doonayaa. 10 aynu ka baran karnana ay tahay in ay laga marmaan tahay qofka wanaagga inoo qabtaa
oo xilligiisa iyo naftiisa u hura inuu maaragtay dadkiisa uu wanaajiyo mas'uuliyad gaar oo ina saaran weeyaan qodobka kale oo kor istaagi lahaa waxa weeyaan wuxuu ahaa senator Yuusuf Xaaji qof nabadeynta mar walba saldhiga u ah oo ka shaqeeya aaminsan inuu dadka isku soo dhaweeyo dawladihii Soomaaliya markii la soo dhisay carta waad wada garanaysaan qaybtu ka soo qaatay oo maanta dawladdan isku dhiibka ee halkan ku soo gaarnay waxaa lafdhabar u ahaa shirarkii Nairobi ka dhacay marar badan oo lagu kala tagayna uu ahaa senator Yuusuf Xaaji qofka kali ah ee isku soo celinaya markasta oo khilaaf ku dhaco waxa aniga farxadii ahayd gaar ah xilli jabhadda ONLF iyo dawladda Ethiopia khilaafkooda uu shakhsiyan go'aansaday isagoo la kaashanaya siyaasiyiinta kale ee Kenya in nabadgelyo lagu dhameeyo khilaafkii jiray saacadaha iyo xilliga uu geliyay wadamada shisheeye ee ma garanaysay hawsha uu lafdhabar uga dhigay qayb ka soo qaatay iyo sida markastoo rajadu sii xumaanaysay uu ahaa shakhsiga isku soo celinaya dadka waxay ku tusinaysaa in nabadeynta iyo wanaagga uu Soomaalida la doonayay meel kasta Soomaaliya ku noolaatay markii la kala qaybiyay Soomaali shanta loo qaybiyay ma ahayn hoggaan eega xindaabka marka uu ku jiro ama ha noqoto citizenshipka uu ka haysto dawladda Kenya ama ha noqoto qarankii Soomaaliya wuxuu mar walba eegayay in geeska Afrika oo hormara dhaqaale ahaan ee lafdhabar u noqonayso nabadeyntuna in iska iman inay u baahan tahay shaqo marka haddii noqoto arintii Suudaan markii South Sudan iyo Suudaan ay isku dhacayeen lafdhabar buu ahaa Xaaji Yuusuf wada heshiiskii dawladda Ethiopia iyo ONLF lafdhabar buu ahaa arrimihii Soomaaliya maaragtay dawladda isku soo dhiibka lafdhabar buu ahaa heer wuxuu gaaray senator Maxamed Yuusuf Xaaji Ilaahay ha u naxariistee gobolada Kenya ee Soomaalidu degan marka ay siyaasiyiintu dhexdooda iskhilaafaan ama bulshadu iskhilaafto in loo yeero senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo la dhaho aabihii nabaddan u yeerinaa inuu kala dhex galo marka nabadgelyada oo laga shaqeeyaa wax iska yimaada maaha waa wax sacrifice u baahan weeyaan waa wax dadaal badan u baahan waa dhibaato aad iyo aad maaragtay qofka dulqaad uga baahan maanta oo dad aan israbin ama laba qof aan israbin inaad mar walba ka shaqeyso shaqo fudud ma aha shaqadaas buu soo qabanayay laga bilaabo 1960kii ilaa hadda uu geeriyooday marka 65 sano inuu bulsho u adeego waxay ku tusaysaa in ay tahay sir qofka nolosha fahmaa kali ah uu ka fahmi karo marka caawa waxaan ku soo gabagabeyn lahaa oo aan aaminsanahay inaynu meeshan kala tagno inaynu isweydiino inaka lafteenu maxaynu rabnaa inaynu adduunka uga tagno qaabkeen rabnaa inaynu aakhiro ugu shaqaysano ma waxaynu rabnaa dad iska soo kaca iska noolaada cunto iska cunaa iska carruurtooda iska korsada inaynu noqono mise inaynu tusaalaha Xaaji Maxamed Yuusuf Xaaji aynu kaga dayano dadka u adeega si ay ilaahayna ugu dhawaadaan nolosha adduunkana ay macaan iyo purpose ay ugu yeelato marka waxaan aaminsanahay casharada ugu muhiimsan aynu kala tagayna waa casharadaas farxad gaar ah ay tahay inaan kala soo qayb galo xafladan qowliyihii soo qaban qaabiyeyna aad baad u mahadsantihiin sida aynu u kala fogaanay xanuunka maaragtay coronavirus-ka looga taxadiray aad baad u wada mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وحن لانهاي إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي حقي سأيان سبحانه وتعالى أنقنينا إلهي سبحانه وتعالى هو المحيي وككلية وحن ولايا وكن وحدلا هو الخالق سبحانه وتعالى مركا أوران ماين هذا الكلام أنا هين
إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وحلق يابا إنان والبهارنو إنان إلمينو لكن إن شاء الله تعالى وندعو عينينا إلهنا سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه جنة الفردوس وكورا بيو سنتر حاجي يوسف إيو شيخنا إيو عالمكي ومد الصوماليات شيخ نور بارود قرحان لوضع إلهي سبحانه وتعالى جنة الله كورا بيو يا دمان مسلمين أنتي دمت إلهي سبحانه وتعالى هون حريصه أنت حنوسنا إلهي سبحانه وتعالى عافيه رنتي وحان ربا هل كان أنا هل الحديث إذن لو ذاقه وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث كني وحكي على بخاري إمام بخاري بكس أروري في صحيحه أنس وحوليه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان أكفديي مركاسا وحا لصو مريي جنازو ميت باسو داد حنبارسن باسو أقمرين مركاسا دادكو أمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت حوغاها دي لسي فديي هدانا جنازة كلا أيان لسو مريي مركاسا دادكو وحيكو شاقين شر يدباتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عمر بن الخطاب وحو يري يا رسول الله مركي هرانا وحتري وجبت مركي دنبنا وحتري وجبت بمعنى ويوجو واجبته يا محدك ودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جنازتي هراء خير بعد كل شيكتين فوجبت له الجنة جنة واجبتي أما جنازتي كلا شر بعد كل شيكتين فوجبت له النار نار بأواجبتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض وحاتهين مخراتياشي للك كركي سجوغي باتهين وحا حقيقة مانتا قف كستو يقانا سنة الحاج يوسف إن قيري ديسا وكان حي حصوصتنا waxyaabo badan oo uu bulshada u qabtay oo uu ahaa public servant oo adeegaha bulshada sida oo kale Sheekh Nuur Baaruud raxmatullaahi calayhi wuxuu ka mid yahaa culimada ugu waaweynayd hay'ata kibaar ulama fi Soomaal Ilaahi subhanahu wa ta'ala loodaba jannadii Allah geeyo إلهي سبحانه وتعالى قبرك هاو نوره إلهي سبحانه وتعالى إننا قداشود إلهي إنا مفتنا إياه إلهي سبحانه وتعالى إهلك يا قرابتي أي كتجانا سمري إيمان الله كسيه صلى اللهم على محمد وعلى آله وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أنا وحلي عبد الله إرشاد وحنا هي نن reer wajeer ama reer NFD marka horta laba arrimood ayaan u imaanay inaan tacsiye meeshan ka bixino oo reerkii laga dhintay aan u dirno anagoo reer Minnesota ama reer USA mid labaad waa inaan u duceyno marka wax badan ayaa laga sheegay Maxamed Yuusuf Xaaji marka wali aniga nafsadey si gooni ah ayay dareenkiisa maaragtay aan aad ugu shucaaya waayo markaan yaraay oon arday ahay asagana PC ahay oo gobolka Rift Valley waxaan ahay nin arday ah ayaan ahay marka waa waqtigii newska anagoo koox yar ah oo Soomaali ah waan ordi jirnay TV-gan waan ordi jirnay sifa aan waa aragna maaragtay muuqaalkiisa asagoo DC ka ahnya hururu meel kasta oo Kenya ah marka gooni ahaan aniga road model yahay oo waqtigaas aan joogay 7 May 8 May ilaa maaragtay 9 May marka si gooni ah ayay ii taabataa dhimashadiisa waayo it's just very painful
midda kale dad badan ayaa laga soo doortaa NFD ama dhulka North Eastern nin la mid ah ma jirin. There was nobody as polite, as humble, as peaceful, as tolerant, as likable as Yusuf Haji. Kuwa hadda maanta jooga anoon waxba ka sheegaynin ma la sheegi karo waqti ad Yusuf Haji Allah u raxmade ad meel istaagay oo dadcay hadal aan macno lahayn qofka markuu gacantiisa ay ka nabad gasho carabkiisana ka nabad gala ninkaas waa nin muslim ah marka aan u ducooyno. marka mid kale waxyaalahan xasuusto waxaa sahay ninka buffer zone waxaa la dhahaa derbiga dhisan oo Soomaalida iyo reerka kale oo maaragtay dadkan kale oo maaragtay Kenya ku nool waliba madaxda Moi. marka dhibaato badan ayaa noola geystay dadka North Eastern. ninkii daafac ahay oo wixii kulli daafac noo ahay asagaas hay. marka haddii aan sheega amaantiisa waxaan u malaynaa ma soo koobi kara caawo. sida ogsoon tihiin mar waxaa jirtay Moi asgay magaalada meel ijaara. marka odaygii Moi ahaa waxaa yiri war Moyow xaajiyow meeshaan waxaad ka rabtaa in magaalo ama maaragtay lagaga dhigo district. marka where are the people? marka magaaladii hadda meel ay noqotay magaalo ijaara waxay noqotay magaalo weyn ayay noqotay meel qof kasta nabad ku hela ayay noqotay. dadkii wajeer ka taga oo meesha idaa la geeyo ma la dhiba waliba gabdhaha lagu daraa. marka it's a very peaceful people, it's a very peaceful waxaas kullina waxaa keenay Yusuf Haji. marka ani waxaan leeyahay anoonba maaragtay amaantii aan weli sii wadi lahay waxaan u imaadnay waxaa inaan odaygaas u ducooyno tusaale aan ka qaadana nabadiisii samaantiisii waxqabashadiisii marka tusaale ahaan u qaadana. midda kalena aan hilmaamin geerida waana sugaysaa waana wala simannahay whether you are 2 years old, 5 years old or 60 years old like me. marka taasna aanoo noqoto tusaale. marka fatxadaan u marna inuu ilaahay janno geeyo inuu dembiga ilaahay ka qaada qabriga u waasaca. marka noo noqdo maaragtay nin aan xasuusanayno waqti mar kasta. midda kale waxyaalaha aan hadda aan ogeyn ayaan ogaaday. maxaa la dhahaa meesha aad ka dhisi qabri Dahare, Jubaland, a lot of other successful stories. marka faataxada aan u marno. faataxa. alxamdulilah salaatullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. marka hore ilaahay baa mahad iskale isu keenay munaasabadan tacsida ah een ugu ducaynayno laba shakhsi oo Soomaaliyeed oo culculus oo miisaan iyo meeqaam ku leh ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahaygi macbuudka ha u naxariisto dembigoodana ilaahay ha dhaafo kitaabkoodana ilaahay midigta ha ka siiyo. laba ruux oo miisaan culus leh bay ahaayeen. labaduba waxay ahaayeen laba khabiir. Sheekh Nuur Baaruud khabiir diimeed buu ahaa. dacwada uu waday ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyey dad badani ka aflaxay wanaag badan ka shaqeeyay buu ahaa. Senator Maxamed Yuusuf Xaaji khabiir siyaasadeed, khabiir nabadeed, khabiir hoggaamin, khabiir dabacsanaan badan ummaddiisa u leh buu ahaa. khabiir shanta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto aan kala jeclayn buu ahaa. isu soo jiida dhibaatadooda ka damqada gogol nabadeed oo ah
ka shaqeeya ummadda Soomaaliyeed inay mar walba wanaag noqoto waxaan leenahay ihsaanka uu sameeyay ilaahay kuma qadiyo annagana gadaashi ilaahay nama fidmeeyo khabiir wuxuu ahaa gaar ahaan dadka North Eastern ku degan derbi oo ah derbi siyaasadeed fagaarayaasha lagu falanqeynayo qoomiyadaha kala duwan ee reer Kenya miiska siyaasadda marka la isugu yimaado khabiirka difaacu ahaa danaha ka shaqeeya dadka reer North Eastern uu ahaa intuu anfacay buu u gudbay Soomaalidii kalena waxaan leenahay hadda waa isaga laga sheekeynayay garbaha riixta isbitaal laga sameeyay oo Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya loogu magac daray General Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay inuu xitaa gacan ka geystay waayada hadda la inoo sheegay meel badan buu ka geystay ilaa Djibouti waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto waxaan u hambalyeynaa oo soo dhaweynaynaa munaasabadan oo jaaliyada Jubbaland dhalinyaradeeda iyo odayaasha reer Jubbaland ay soo abaabuleen cid kala soo qayb gashay ee rag iyo dumar bale waad mahadsantihiin talaabo kasta oo soo qaadeen iyo mid aad sii qaadaysaanba ajri iyo xasanaad Allah idinka siiyaan idin leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa oo kale oo u ducaynaynaa oo indhahanagii diimeed ah culimada ku nool magaaladan Minneapolis ee nagala soo qayb gashay ee xafladan timid ducada ah waxaan idin leenahay hogaankii diimeed ee ku diirsanay baa tihiine Ilaahay diinta sida aad noogu haysaan ha idin ku sugo annagana kuwii aad nagu ku marka ma hogaaminaysaan kuwii idin raaca Allah annagana ha naga dhigo waxaan leenahay geeridu way imaanaysaa waa xaq kulli intaana meeshan fadhinaana wadadaan baan wada maraynaa qof yaqaan iyo qof aan aqoonin iyo qof munaasabadan yimidowba taa uun filo una duceeya intii inaga horeysay iyo inta inaga dambayn doontaba aynu u wada duceyno Ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo shafaac wiilkan adeerku ah walaalkii isagana caawa waa la inoo soo sheegay geeridiisa bishan gudaheeda dad badan baa ummadda Soomaaliyeed ka baxay General Maxamed Nuur Galaar isaga laftigiisu waa isaga wiigii hore dhintay Allah u naxariisto geeri xaq darro ku dhacday khabiir wuxuu ahaa military oo Soomaaliyeed wax badan qabtay la yaqaanay buu isaga laftigiisu ahaa jannadii Allah ka waraabiya gacanka khadaran baa ku dhacday isagana tacsida hawada waan u marinaynaa Ilaahay ha naga aqbale waxaan leeyahay marka on ku soo gabagabaynayaa raaliga ahada waan ku durkay hadalkee Ilaahay dhalinyaradii soo abaabushay ajri iyo xasanaad ka siiyay intii ka soo qayb gashay oo dhan ducadana Ilaahay ha inaga aqbalo tacsidaasna aynu isugu nimid meeshan cidii aynu ugu tala galay Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعيجو ويسرى أحمد نور عرب. دمانتين واني سلامية وحن اسكسو تاجي إنان أتعسيه أهل كمرحوم سنتر محمد يوسف حاجي وحن كلا أتعسينا يا أدير الشيخ نور بارود أهل كيسة رونهانتي وحي أهاين لبا شخصي أو قالي أو شرف تاريخ كله بالشدة الصوماليات. waxaan ilaahay uga baryaa inuu jannada ka waraabiyo uu marti la jecel yahay Allah ka dhigo samri iyo iimaan waxaan leeyahay heerkooda ayaan u dirayaa waa mahadsantiin waxaan maanta halkan tacsi uga diraynaa senator Yusuf Maxamed Yusuf Xaaji iyo caalimkeeni weynaa Sheekh Nuur Baaruud oo run ahaantii anigu aan ahay labada gobol ay ka soo jeedaan xagga aabaha iyo xagga hooyadaba galaya oo aan isleeyahay waxaan u ahay gundhig run ahaantii intii badnayd dadkii ayaa ka soo hadlay taariikhda senator Maxamed Yusuf Xaaji iyo Sheekh Nuur Baaruud bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan rabaa inaan ugu bishaareeyo waxaan haysanaa wali dad dhalinyaro ah oo taariikhda nabadda wax ka geli doona kana muuqda hadda bulshada dhexdeeda marka aan sidaa leeyahay
waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo dhammaan dhallinyarada waxbaratay ee ku kala nool dhammaan daafaha dunida ee u taagan u adeegista iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed waxaan mar labaad leeyahay samir iyo iimaan Allah inaga wada siiyo dhammaanteen Senator Maxamed Yuusuf Xaaji iyo Sheekh Nuur Baaruud. waxaana Ilaahay uga baryayaa inuu jannatu firdawso Ilaahay ugu bishaareeyo kitaabkoodana Ilaahay midigta ka siiyo annagana gadaashood inuuna Ilaahay na aafaynin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhalinyarada Jubbaland ee soo abaabushay xafladan barordiiqda ah. waxaan idin leeyahay waad naga horbadiseen marka aan anigu kaftamo deegaanka aan anigu ka soo jeedo deegaanka Soomaalida yani reer Jubbaland waad naga badiseen laakiin waa idin la tartamaynaa insha Allah. annaguna xaflada la mida oo qaali ah ayaanu diyaarin doonaa haddii alla yiraahdo. aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. runtii waxaan ugu timi gelin naxdin leh senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo maalintii Isniinta ay ku dhintay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. runtii waxaa garan kartaan intii badnayd waa laga hadlay taariikhda marxuumka laakiin sidii la sheegay waa muddo 60 sano ku soo jiray public service-ka oo runtii aad garan kartaan xilalkii kala duwanaa uu soo qabtay. marka laga tago xilalkiisa runtii Maxamed Yuusuf Xaaji waxa uu ahaa odayaasha u ah East Africa hoggaanka oo aan ahayn kaliya Kenya geeska Afrika dadka Soomaalida dadka talada wax laga weydiiyay ayuu ahaa. waxaa ku garan kartaa waxa uu shaqo la soo bilaabay madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya Jomo Kenyatta intii madaxweyne uu soo martayna waa la shaqeynayay. marka waxaa garan kartaa khibradiisa dulqaadkiisa isku wadka dadkiisa iyo suu uga shaqeynaya nabadda iyo wanaagga. dadku inta badan hadda waxay ka hadleen Soomaalida kaliya laakiin wuxuu ka soo shaqeeyay gobollo badan oo ay Soomaalidu deganayn. markaas waxaa garan kartaa kalsoonida lagu qabay iyo khibradiisa aqooneed si ay uga faa'iideysteen wadamada geeska Afrika iyo Kenya. runtii saa u wadeenba qof ka maqnaa ma jira qabrigiisa dalka Kenya oo mas'uulka ah oo ugu sareeyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka soo qayb galay meydkiisii markii dambana gurigiisii ilmihii u tagay. marka runtii nin Soomaali kaliya ka dhinta ma ahayn Maxamed Yuusuf Xaaji waxa uu ahaa siyaasi rugcada ah oo ka dhintay bariga Afrika buu ahaa. marka runtii waxaa anaga aad iyo aad u rajaynaynaa marka ugu horeysa Ilaahay bedelkiisii inuu noo keeno si degdeg ah ummadda Soomaaliyeedna uu ugu bedelo bedel fiican iyo dhammaanba ummadda geeska Afrika. sidoo kale runtii Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu kitaabkiisii mid ka siiyo awlaadiisii dadkii uu ka tagayna Ilaahay inuu xafido. waxaan kale u tacsiyeenayaa Sheekh Nuur oo isaguna ku dhintay magaalada Muqdisho. Sheekh Nuur Baaruud oo isaguna ka mid ahaa culimadii muddada badan ku jirtay dacwada islaamka isagana runtii dhintay magaalada Muqdisho ku dhintay. marka runtii Ilaahay waxaan ka baryaynaa badal khayr qaba inuu ummadda siiyo. qof kastana ogaada runtii waxa la rabaa dadka waxay hayeen shaqo public service marka anagoo dhan mas'uuliyad waxaan saaran ah inaan booskoodii buuxino oo ay naga soo baxaan dad shaqadii wada oo waxa ugu fiican oo laga shaqeeyna waa samafalka iyo adeega bulshada. labada qof sida hadda la sheegay taariikh ay uga tageen geeska Afrika iyo ummadda ku nool bariga Afrikaba. marka runtii waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha barnaamijka tacsida iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. intaasi waxaa ku soo idlaatay munaasabadii koobnayd oo ku saabsanayd runtii taxsidii iyo ducadii loo sameynayay marxuum Maxamed Yuusuf Xaaji iyo Sheekh Nuur Baaruud. اللهم اغفر لهما وارحم لهما ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النار يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.